Ilbaxnimo ka soo bilaabata ilaa iyo 5,000 sano, dalka ay taariikhdiisu weli nooshahay, dalka uu webiga Niil weli xambaarsan yahay noloshiisa oo dhan, dalka ay ku yaalaan mucjisooyinka dhabta ah ee bani'aadamka, waa dal Muslim ah, Afrikaan ah, Carbeed, kana tirsan kuwa ugu saamaynta badan dunida Muslimka, waa Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar. Haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato dalka Masar, fadlan dhammayso ilaa dhammaadka muuqaalkan, sidoo kalena ku soo biir kanaalkeena oo dheh subscribe, like iyo share. Sidoo kalena faaladaada noogu reeb qaybta hoose ee kommentiga. Mahadsanid. Halkee ay dhacdaa Masar? Masar waa dal ku yaala waqooyiga Afrika, isagoo xuduud la leh dalalka Liibiya, Suudaan iyo Falastiin, wuxuuna dhacaa meel muhiim ah oo isku xirta Afrika, Aasiya iyo Yurub. Waxaa mara kanaalka Suez oo ah marin biyood istiraatiiji ah oo ay maraan maraakiibta ganacsiga adduunka oo wada qiyaastii 10% ganacsiga caalamka. Dalkan wuxuu leeyahay xeebo u furan badda cas iyo badda Mediterranean-ka, wuxuuna leeyahay juqraafiyo kala duwan sida saxaro kulul, webi barwaaqo ah, buuraha Sinai iyo magaalooyin taariikhi ah. Cabirka guud ee dalkan wuxuu ku fadhiyaa baaxad dhan 1,450,000 kiilomitir square. Dalkan waa saxaro qalalan 90% dhulkiisa, halka 10% ay tahay in laga heli karo biyaha noloshana ku habboon, waana inta uu maro webiga Niil oo ah halbowlaha dalkan. Caasimadiisu waa Qaahira, waana magaalada ugu weyn ee Masar, waxaana ku nool dadka ugu badan dalkaasi oo ah qiyaastii 10 milyan oo qof. Waa haddii aanan lagu darin hareeraha magaalada, haddiise lagu daro tiradu waxay dhaafaysaa in ka badan 20 milyan oo qof. Qaahira waxay leedahay taariikh dheer oo ku saabsan diinta iyo dhaqanka, waxaana ay caan ku tahay inay ku yaalaan masjidka Al-Azhar iyo jaamacadda Al-Azhar Sharif. Sidoo kale madxafka weyn ee Masar ayaa ku yaala caasimadan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee taariikheed ee caalamka oo ay yaalaan ku dhowaad 120,000 oo walxo qadiimi ah oo ka haray boqortooyinkii horay. Sidoo kale waxaa dhaca caasimadan fagaaraha Tahrir Square, halkaasi oo caan ku noqotay banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadaha awoodda ku takrifala. Waxay kaloo leedahay Qaahira suuqa caanka ah ee Khan al-Khalili. Magaaladan waxaa lagu naanaysaa ama ku magac dheer tahay magaalada kunka minaaradood sababo la xiriira masaajidda taariikhiga ah ee tirada badan. Magaalooyinka kale ee dalkani waxaa ka mid ah magaalada Alexandria, Port Said, Giza iyo Shubra al-Khayma. Masar waa dalka ugu dadka badan dunida Carabta, kana mid ah 3 dal ee ugu dadka badan Afrika kadib Nigeria iyo Ethiopia, iyadoo dadkiisu ka badan yihiin 110 milyan oo qof. In ka badan 90% dadka dalkan waa muslimiin Sunni ah, halka 10% ay yihiin Kirishtaan. Diintu waxay door weyn ku leedahay dhaqanka, siyaasadda iyo nolosha bulshada Masar. Afka rasmiga ah ee dalkani waa af Carabi, balse Masaaridu waxay ku hadlaan lahjad gaar ah oo laga yaqaan Bariga Dhexe oo dhan, waxaana loo yaqaan lahjadan Masri. Mana aha mid loo isticmaalo akhrinta Qur'aanka iyo isticmaalka rasmiga ah ee dowladda, balse waa mid ay aad u fahmaan Carabta kale sababo la xiriira awoodda warbaahinta Masar ee dhanka filimada, muusikada iyo telefishinada. Dhalashadii ilbaxnimada ee Masar. Dalkan waxaa lagu tilmaamaa hoyga ilbaxnimada aadamiga. Waxay ahayd meesha laga aasaasay boqortooyooyin faraacino ah oo qiyaastii 3,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam jiray. Waxay dhiseen dhismayaal raagay waqtiyo badan iyo xadaarado ilaa iyo hadda jira, sida ahraamta Giza. Ahraamtani waa 3 ahraam oo qadiimi ah, waxaana la sheegaa in loo dhisay boqorada kale ah Khufu, Khafre iyo Menkuri, waxaana loogu dhisay qabuur ahaan. Waxayna ku yaalaan magaalada Giza, galbeedka Qaahira ee dalka Masar. Waxaa agtooda ku yaal taalada weyn ee Sphinx, waa taalada qaab ahaan leh weji bini'aadam iyo jir libaax, waxaana loo tixgeliyaa inay yihiin ahraamtan mucjiso taariikheed marka la fiiriyo qaab dhismeedkooda ku tusinaya injineernimada ummadihii hore. Waxaa kaloo ka mid ah dhismayaasha raagay ee dalkan magaalada Al-Aqsa, waa magaalo ku taal koonfurta Masar, waxaana loo yaqaanaa madxafka furan ee taariikheed ee ugu weyn caalamka. Waxay leedahay magaaladan hanti fara badan oo taariikheed oo qadiimi ah. Waxaa magaaladan Luxor caan ku tahay Luxor Temple oo ah macbad weyn oo magaalada gudaheeda ku yaala. Waxay kaloo magaaladani caan ku tahay Valley of the Kings oo ah meesha boqoradii faraacinada lagu aasi jiray oo uu ku jiro Tutankhamun. Valley of the Queens
oo ah meesha lagu aasi jiray boqorada haweenka ah. waxaa kaloo lasoo wariyaa faraacinada inay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee keenay kalendarka ama sanad tarsiyeedka iyagoo isticmaalaya qoraxda iyo xidigaha. Masar waxay soo martay xukunno kala duwan sida boqortooyooyinkii faraacinta, qabsashadii Giriiga ee Masar ee uu horkacayay Alexander the Great, kaasi oo aasaasay magaalada Alexandria oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas. kadibna waxaa ka taliyey Roomaankii ilaa ugu dambeyntii khilaafadii muslimiinta ahayd ee islaamka gaarsiisay ee uu horkacayay saxaabigii weynaa ee Camr ibn al-Caas radiyallahu canhu. kadibna Umayyiintii, kadibna khilaafadii Cabbaasiyiinta, Faadimiyiintii, dowladdii Ayyuubiyiinta, Mamaaligtii iyo khilaafadii Cusmaaniyiinta ilaa iyo markii dambe uu qabsaday Ingiriiska, kaasi ay xornimada ka qaateen 1952. siyaasadda casriga ah ee Masar. sanadkii 1952 jamhuuriyadda Masar waxaa la wareegay dhaqdhaqaaqa ciidan ee golaha dhexe ee saraakiisha xorta ah oo uu horkacayay Jamaal Cabdinaasir oo noqday hogaamiye caan ah oo Carbeed iyo mid Afrikaanba. waxaase xigay Anwar Saadaat. kadib dilkii Anwar waxaa yimid Xusni Mubaarak oo xukumayay ilaa kacdoonkii 2011 ee loo yaqaanay Guuga Carabta Arab Spring Rabiicul Carab. kacdoonkaas ayaa riday nidaamkii Mubaarak, sidoo kalena markii ugu horreysay ay ka dhacday dalka Masar doorasho qof iyo cod ah oo shacabku ay ku doorteen Maxamed Mursi. 3 Julaay 2013 Cabdilfataax al-Siisi ayaa afgembi militari xukunka kula wareegay, xabsigana dhigay madaxweynaha la doortay ee dalkaas Maxamed Mursi, wuxuuna weli hayaa talada dalka Masar. dhaqaalaha Masar. Masar waa waddan dhaqaalihiisu isku dhafan yahay, wuxuuna badanaa ku tiirsan yahay dalxiiska oo ay dadku booqdaan ahraamta, qulqulka webiga Niil iyo qalcadaha Islaamka. sidoo kale dhaqaalaha dalkani wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, gaar ahaan kuwa dhaca hareeraha webiga Niil. sidoo kale dalkani wuxuu dhaqaale qiyaastii $10 bilyan oo dollar ka helaa kanaalka Suways sanad kasta. shidaalka iyo gaaska ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalkan. shidaalka iyo gaaska ayaa u suurageliyey Masar inay ka mid noqoto saldhigyada tamarta ee bariga dhexe. si kastaba ha ahaatee, Masar waxay wajahaysaa caqabado dhaqaale oo ay ka mid yihiin sicir barar, saboolnimo sii kordhaysa, iyo cadaadis ka imaanaya sanduuqa lacagta adduunka IMF, taasi oo ay weheliyaan deymo ballaaran oo culays ku haya dowladda. webiga Niil. webiga Niil waa lafdhabarta Masar, waana webiga ugu dheer caalamka, wuxuuna ka yimaadaa buuraha Itoobiya iyo harada Victoria, wuxuuna soo maraa Suudaan, kadibna soo galaa Masar ilaa uu kaga daro badda Mediterranean-ka. dad badan ayaa ku nool hareeraha webigan, wuxuuna siiyaa biyo ay u isticmaalaan cabitaan ahaan, biyo ay wax ku beertaan, khayraadka luumaysi, iyo fududeynta safarada iyo dalxiiska. marka magaca Masar la maqlo, ahraamta ayaa ku soo dhacaysa maskaxdaada, balse dhab ahaantii Masar ma noqon lahayn Masar la'aanta webiga Niil. waxbarashada iyo cilmiga. Masar waxay leedahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn Islaamka, Al-Azhar Sharif, oo la aasaasay qarniyadii dhexe. waa xarun diimeed oo muslimiin badani oo caalamka ka yimid ay wax ku bartaan dalka. sidoo kale wuxuu leeyahay jaamacado casri ah, xarumo cilmi baaris, iyo dad aqoon-yahano ah oo door ku leh dhaqanka iyo suugaanta Carabta. awoodda iyo saamaynta Masar ee gobolka. ciidanka Masar waa kuwa ugu awoodda badan dunida Carabta, sidoo kale waa kuwa ugu weyn Afrika. waxaa lagu qiyaasaa inay leeyihiin in ka badan 440,000 oo askari, iyo sidoo kale ciidanka cir ee ugu horumarsan Afrika iyo kan badeedba. Masar waxay leedahay taariikh dagaal oo xoog leh oo ay ka mid yihiin dagaaladii ka dhanka ahaa Israa'iil. sida laga soo xigtay Global Power Index, Masar waa dalka ugu militariga xooggan Carabta, waxayna astaan u tahay awoodda iyo difaaca gobolka. balse xaqiiqdii wax saameynahi kuma laha ciidanka sidan u awoodda badan wax ka beddelka gobolka. Masar waa dal ku leh cod weyn Carabta, Afrika iyo Islaamkaba. waxay xubin ka tahay jaamacadda Carabta, Arab League, Midowga Afrika, African Union, ururka iskaashiga Islaamka, Organization of Islamic Cooperation, gudiyada Suways iyo UN-ka ama qaramada midoobay. waa dal leh saameyn culus oo siyaasi ah, mid diimeed iyo mid dhaqanba. quruxda dabiiciga ah ee dalkan. Masar waxaa laga helaa meelo qurux badan oo ku habboon dalxiiska, sida xeebaha quruxda badan ee ku yaala badda Cas, buuraha Sinai, iyo godad qadiimi ah. ku dalxiiska webiga Niil iyada oo la isticmaalayo doomo loo diyaariyey in lagu safro loona isticmaalo dalxiiska. suuqyada Qaahira sida kan Khan el Khalili iyo ahraamta qadiimiga ah. Masar
waa meel uu dalxiisuhu dareemayo taariikh, diinta Islaamka, dhaqanka Carbeed iyo ilbaxnimadii hore oo isku dhex milantay. Masarta maanta waa dal leh awood, laakiin sidoo kale la daalaa-dhacaya caqabado dhaqaale, cadaadis siyaasadeed iyo shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada ah. Masar waa dal leh karti, hal abuur iyo dad jecel horumar. Waa dal ay dunida Muslimka iyo Afrikaba u arkaan hooyo taariikhi ah, mid weli wax badan laga filan karo. Masar ma aha oo keliya dhaxal ay ka tageen faraacinada, waa dal Muslim ah oo ku taagan laba dariiq, mid waaye aragnimo fac weyn leh iyo mid mustaqbal ifaya.